السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وضع سلامي عشر كانوا حنكون برندونا نمبس وحييين بايثون مركا الاستعماليو يسيد الله استعماله مركا قيبتو غورس ينو برانينو حويان انتجركو سيدي سبوا هول نمبر والنمبر بوحة وعن لهين decimal point مركا نمبر كاسو حو نقون كرا سيدا هالكان وكالي نمبر ير نمبر دير سيدا هذا واي وكالي iyo negative number hadduu negative iyo positive yahay labaduba waxaa noqonayaa integer hadduu yahay whole number haddaanu wadan decimal point marka haddaynu hadda ka ugu dambeeya eegno typekiisa print z oo kale haddaynu eegno wuxuu noqonayaa integer ayuu sheegay inuu yahay type int okay qaybta ku xigteen barayna waxa weeye marka waa float oo number wata decimal point marka wuxuu noqon karaa number yar hadduu xataa 1.0 yahay waa float hadduu negative yahay waa float waxaa muhiim ah inuu wato decimal point marka 1.0 gaas oo kale haddaynu eegno wuxuu noqonayaa float ayuu noqonayaa y haddaynu eegno hadda okay qaybtaas marka haddaynu fahanay integer iyo float waxaanu baranaynaa operators waxa la dhaho sida matalan lambarada la isugu daro ama loo kala jaro ayaanu baranaynaa operatorska marka uu iska fudud yahay waa addition key oo plus la isticmaalayo marka 5 plus 2 7 subtraction key oo marka minus la isticmaalayo multiplication waxaanu isticmaalaynaa asterisk division ka waxa weeyaan forward slash kaas marka 4 divide by 2 baa soo haraya saddexdan ugu dambeeya ayaa muhiim ah in si fiican loo fahmo ka ugu horeeya labada forward slash ka waxa weyn floor division ayaa la dhahaa wuxuu ku sheegay inta mar uu numberkaas uu number kale geli karo marka matalan hada 3 lagu dhafo 3 waa 9 3 mar ayuu markaa geli karaa numberka 13 ka wuxuu inoo qoray 3 modular oo ku xiga oo percentage ka wuxuu inoo sheegayaa remainder kii mata wixii soo haray marka saddexdaas oo kala deenu laba forward slash aynu gelino percentage meesha labada forward slash uu ka yahay waxa soo baxaya 1 marka matalan hadda 5 modulo 2 waxa soo baxaya 1 waayo 2 times 2 is 4 the remainder is 1 waxa soo haray 1 haddaad rabto inaad number raise garayso oo dhahdo 2 to the power of 2 oo kale matalan waxaad isticmaalaysaa double asterisk waxaad haysaa 4 double asterisk 2 waxay la mid tahay 4 times 2 is 16 marka operatorska markaynu si rabnayna aragno waxaynu isticmaalaynaa matalan plus print aynu dhahno print 2 plus 2 wuxuu noqonayaa 4 kaas waa iska straight forward waa la iska fahmayaa waxaa muhiima marka laakiinse xisaabta la xisaabinayo inaad ogaato inay kala leeyihiin priority marka multiplicationku uu ka sareeya xagga priority-ga addition-ka isku darista haddaan iminka print dhahno intaas wuxuu odhanayaa marka hore wuxuu isku darayaa haddaynu ka saarno bracketska marka hore aynu dhahno print marka hore wuu isku dhufanayaa 2 times 2 4 plus 3 7 waayo duplication-ka waayo multiplication-ka ayaa ka priority sareeya addition-ka haddaynu intaa xisaabino wuxuu inoo qoray 7 2 times 2 is 4 plus 7 haddaynu rabno laakiin marka hore inaynu isku darno kabacdina resultiga soo baxay aynu isku dhufanno waxaynu isticmaalaynaa parenthesiskaas ayaa marka ka priority sareeya multiplication-kaas iminka labada number isku daraya 2 plus 3 wuxuu noqonayaa 5 times 2 is 10 ayaa soo baxay taasaa muhiim inaad fahantaan sida ay u kala markaa priority sareeyaan waxaa muhiim marka intaad rabto marka hore inaad xisaabiso inaad geliso parenthesiskaas kan waynu aragnay oo marka hore uu isku dhufanayaa kabacdi ayuu markaa 3 ku daray 2 times 2 is 4 plus 3 is 7 waxaan kaloo isticmaali karaa negative key hadaynu dhahno print halkaa kuwa kale matalan comment haddaynu ka dhigno marka hore waxaan minus 7 plus 2 waa minus 5 times minus 4 is 20
marka haddaad negative-ka isticmaasho negative unbaad hordhigaysaa numberka. Okay, kan haddaynu iminka comment saarno aan ku xiga eegno ka decimalkiina waad isku dari kartaa, laakiinse marmar waxa kusoo baxaya result aadan filanaynin pythonka. meeshaan ka sugayna inuu noo soo baxo 0.3 waxay noo soo baxay 0.30004. marka waa la iska ilaaliyaa inaad ogaataa inuu kusoo baxay hab sida looga hortagaa jiray, laakiin marka laynu baran doonaa. marmarna iminka kanoo kale haddaynu ka saarno commentiga aynu resultiga eegno waxaa inoo soo baxaya 0.5. marka waa bug ku jira pythonka. waa 0.1 plus 0.2 marka isku darayo sida soo baxaya, laakiin halkan 0.2 plus 0.3 caadi wuxuu inoo soo saaray 0.5. qaybtaas marka waa isku daristii iyo isku dhufashadii. haddaynu rabno 2 to the power of 5 waxaynu isticmaalaynaa double asterisk. marka adoo yidhi 2 times 2 times 2 times 2 shan mar adoo sidaa yidhi ay la mid tahay. haddaynu run dhahno waxaa inoo soo baxay 32. marka 2 to the power of 2 haddaynu dhaho 2 to the power of 2 matalan waa 2 times 2 is 4 ayaa inoo soo baxay. qaybtan ku xigta waa divisionkii, isna iska fudud yahay. 11 divide by 2 waxaa inoo soo baxaya 5.5. waxaa kaloo muhiim inaynu ogaano haddaynu dhahno divide by 10 waxaa inoo soo baxay 5.0. marka mar walba haddaad laba number isu qaybso resultigu waa float. taasaa muhiim iyana lala socdo, ma aha integer, ma aha kani, hadda waa float. qaybtaasi waa divisionkii. waxaa inoogu xiga floor divisionka. haddaynu dhahno print, marka tan waxay la mid tahay adoo yidhi imise mar ayay number 2gu geli karaa 11ka. 2 times 5 is 10. marka 10kaas 5 times ayuu kuu sheegaya inuu geli karo. haddaynu print dhahno waa 5. kabacdi waxaynu ogaan karnaa maxaa soo hadhay, reminderkii waa maxay. waxaanu isticmaalaynaa markaa percentageka modulo ayaynu isticmaalaynaa. wuxuu inoo sheegayaa wixii soo hadhay. inoo sheegayaa 1. halkaa waxaynu ku ogaan karnaa markaad rabto inaad ogaato numberku inuu yahay Kinsey iyo Daman waxaad u qaybin kartaa uun percentage 2. hadduu 1 kuu soo hadho markaa waa Kinsey, haddii kalena waa Daman. ama even iyo uneven haddaad rabto inaad eegto, ama odd number. hadda matalan 45 ayaynu rabnaa inaynu ogaano ma Kinsey baa mise waa Daman. waxaynu u qaybinaynaa uun percentage 2. resultiga waxaa inoo soo hadhaya 1 ayaa inoo soo hadhay. taas micnaheedu waxa weeyaan markaa waa Kinsey. haddaan laakiinse 46 ka dhigo waxaa soo hadhaya markaa 0. taasoo micnaheedu yahay markaa numberkani waa Daman ama waa even number. long number hadduu yahay sidoo kale aad rabto inaad ogaato maxaa soo hadhaya percentage 2 unbaad oranaysaa. waxaa kuu soo hadhay 0. halkaa waxaad ku ogaanaysaa numberkaas inuu yahay number Kinsey ah. haddii aynu ka dhigno 1 last number waxaa soo hadhi doona run dhahno 1 ayaa ka soo hadhay. halkaas markaa waxaan ogaanaynaa numberkaas inuu yahay Kinsey. waxaa kaloo muhiima in la ogaado inaan 0 number loo qaybin karin. calculatorkaagii marka haddaad isticmaashaba error ayuu soo saarayaa. marka haddaynu dhahno print 10 divide by 0 waxaa inoo soo baxaya error ayaa inoo soo baxaya. errorkaasoo micnihiisa la dhaho zero division error. qayb kale oo la dhaho exception handling ayaynu ku baran doonaa markaa sida loola macaamilo exceptionka ama errorka. laakiinse waa muhiim inaad ogaataan markaad xisaabaysaan inaad iska check garaysaan xisaabta aad xisaabisay. hadday kasoo hadhay 0 oo aad markaa number kale u qaybiso waxaa kaa hor imanaya wax la dhaho zero division error. qaybta ku xigta ee muhiim inaynu fahanno waxa weeyaan wax la dhaho in place operators. waa koodhka ayaad u qoraysaa si yaroo ka kooban. marka waxa weye in place operators allow you to write a code like waxay ku ogolaanayaan marka inaad koodhkii ahaa matalan x is equal to x plus 3 inaad u qorto si yar oo kooban more concisely
as x plus equal 3 marka plus equal taas ay waxay u taagan tahay equal x plus 3 gii markaad soo gaabinaysaa the same thing is possible with other operators marka other operators kii ama ha noqdo multiplication ama division ama floor division ama modulo intuu doon dhammaantood oo isticmaali kartaa in place operators ka iminkana tusaalayaal aynu arki doonaa okay halkan waxaynu haysanaa x is equal to 1 marka waxaan rabaa inaan haddana dhaho x is inaan hal mid kale ku daan rabaa marka caadi ahaan sidan aad u qoran kartaa x plus 1 print x waxaa ku soo baxaya 2 halkii marka aynu x equal to x plus 1 ka qori lahayn waxaa ka fudud inaynu isticmaalno in place operators waxaan odhanaynaa x plus equal 1 hadaynu print garayno same result ayaa soo baxaya number 2 ayaa soo baxaya marka operatorski kale aan soo baranayna sidaas kale ay loo isticmaali karaa hadaynu hadda rabno inaynu saddex ku dhufano waxaan oran karaa x asterisk equal 2 hadaynu print garayno x marka 2 baynu haysanay 2 baynu ku dhufanay waxaa noo soo baxay 4 hadaynu rabno inaynu laba kale aynu dhahno to the power of 2 waxaynu oran karnaa x double asterisk marka to the power equal 2 4 baynu haysanay 4 times 4 16 ayaa noo soo baxaya 16 dhammaan markaa operatorskaynu soo baran dhoona waa la isticmaali karaa hadaynu rabno inaan laba u qaybin waxaan leenaynaa /2 /equal 2 waxa weeyaan 8.0 sidaa awgeed in place operators waxay ku fududeynayaan inaad codekii aad qoraysay u yaraado so you write a more concise code halkaa waxaynu ku gabagabaynay barashadii numberska pythonka hal challenge ayaad samaynaysaan marka intaad videoga joojisaan isku day inaad samaysaan kabacdi baan idin tusi doonaa solutionka sidii caadada ahayd challenge waxa weeyaan prompt the user to input their favorite numberka favoritekooda ama ay jecel yihiin ayaad weydiinaysaa and store in a variable ayaynu ku save garaynaynaa kabacdi markaa then using that variable adoo variableka isticmaalaya print a message which says markaa waxaad oranaysaa your favorite number is halkaa waxaad gelinaysaa numberkii uu qofku geliyey waxaan rajeynaya aad ka shaqaysaan challenge-ga iminkana waxaan idin tusi doonaa solutionkii marka ugu horreysa waxaan weydiinaynaa number waxaan oran karnaa is equal to input what is your favorite number marka waxaan oranaynaa print inuu isticmaalayna formatting aynu baranay f your favorite number is kabacdina numberkii uu qofku geliyey aynu halkaa gelinaynaa hadaynu rangarayno 12 your favorite number is 12 halkaa waxaa inoogu dhammaaday barashadii numberska aad baad mahadsantihiin waa inoo iyo casharka dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu